nabadda wadayaal dhageystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. iminka iyo haatana waxaad ku soo dhawaataan qormo kale oo ku saabsan fardaha. maantana waxaynu eegi doonaa qodobo dhowr ah, balse waxaynu ugu horreysiin doonaa farduhu halkee bay ku dhaqmaan. farduhu inta badan waxa ay ku dhaqmaan lagana heli jiray dooxada Nugaal iyo carrada gobolka Sanaageed, inkastoo laga helo fardo aan badnayn gobollada dhexe ee Soomaalida, balse waxaa sidoo kale farduhu ku dhaqmaan lagana jecel yahay deegaanada kilalka shanaad ee Soomaalidu degto. farduhu waa qoobley aan lahayn cag ballaadhan, sidaa darteedna kuma dhaqmi karayaan dhulka dhagaxa iyo nolosha adag leh, waayo farduhu waa nugul aan biyaha ka qadin, dhulka bowruhuna waxa uu ka fog yahay biyaha. farduhu waa mucjiso gooni ah, waayo in badan buu Ilaahay Qur'aanka kaga warramay, isagoo meelaha qaarna ku dhaartay sida suuratul Caadiyaat. waxaynu u geli doonaa noocyada fardaha iyo magacyada loo yaqaano. xakaamihii la sudhayo goore loo xambaaro og ogaale fuuro oo xuubta boodada xawaaraha la yaabo oo xuubta boodada xawaaraha la yaabo. waxaa jira ilaa 7 nooc oo fardaha ah, mid kastaana waxa uu leeyahay magac u gaar ah, muuqaal u gaar ah, dabeecad u gaar ah iyo awood u gaar ah. 7da magac ee ugu caansana waxaa ka mid ah kuwan: xamar waa madow kafee ah, ashkir casaan dikhil ah ilaa tin iyo xidhib, bullaale caddaan giirka ama shaashka madow jilbahana madow kaga jiro, qaaje waa faras wada cad midab kalena ka madhan, bood caddaan cawlan ku jiro, caynab faras tukhul madow ah sida tukaha ama sugulle ah, baroor waa faras 4 midab leh inta badan. haddaba waxaynu eegi doonaa markan fardaha iyo mid waliba bal waxa uu ku fiican yahay iyo waxa uu kale kaga duwan yahay. xamarka waa nooc casaan ah oo timaha shaashka iyo saynta dabaduba ay madow yihiin, waxa uuna u kala baxaa 2 midab oo kala ah, xamar madow iyo xamar cad. xamar madow waa faras noociisa xamarka noociisa kafeega u eg waxaa loogu yeedhaa xamar madow. inta badanna waxa aad moodaysaa in uu madow yahay, balse waxaa ku jira casaan aan awood badnayn oo uu ka tanbatay madow. sidoo kale waxa uu cad yahay wejiga inta 2 indhood u dhaxaysa ilaa meel afka ku dhow oo caddaan liid ah ayuu ku leeyahay xamar cad. xamar cadku waa faraska midabka casaanka ah iyo caddaanka yar oo aan badnayn, kaasoo markuu kaa fog yahay aad moodayso casaan ciidda hawd ah, balse markaaad soo gaadho aad ku arkayso midabkiisa inuu caddaan ku jiro. labaduba waxa ay madow yihiin shaashka iyo saynta dabada. sidoo kale noociisaasna wejiga ayuu caddaan ku leeyahay sida kii hore, maadaamay isku jaal yihiin. ashkir waa faraska wada cas dhammaan iyo guud ahaanba, xitaa waxaa cas shaashka iyo dabada, balse waxa uu caddaan yar ku leeyahay salaanta wejiga iyo afka hore. waana faras aad u qurux badan, aadna loo jecel yahay. daawadayaal, halkaa inoogu joogto qormadeenni xiisaha lahayd ee fardaha. intaynu mid kale u kulmi doono, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.